dowladda Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday cidda ay taageerayso dalalka Kenya iyo Djibouti oo isku haysta kursi ka mid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Safiirka Itoobiya ee Kenya u fadhiya Melis Alim oo arintan uu wax ka weydiiyay wargeyska The Star ayaa sheegay in si la mid ah ururka midowga Afrika ay Itoobiya taageerayso Kenya. Itoobiya waxa ay ka warhaysaa loolanka Kenya ee kursiga golaha ammaanka. Dalkeena waxa uu mar walba qaadan jiray go'aano ku salaysan mabaadi. Mowqifka Itoobiya waa kan uu qaatay ururka midowga Afrika oo taageeray Kenya, ayuu yiri Melis Alim. Djibouti ayaa diiday taageerada ururka midowga Afrika oo ujeedkeedu uu ahaa in dhammaan dalalka qaaradda Afrika ay hal dal wada taageeraan. Djibouti waxa ay sheegtay in ay sii wadayso murashaxnimada iyo loolanka ay kursigan ku raadinayso. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u taageertay murashaxnimada Djibouti ee kursiga aan joogtada ahayn ee 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mowqifkan ayaa waxa shaaca ka qaaday danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo ka qayb galayay munaasabad ka dhacday dalka Mareykanka oo Djibouti ay si rasmi ah ugu dhawaaqday ololaha ay ku doonayso kursigaas aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay.